السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا كسو دو كورنت أكاديمي وانكو فرحسنا هاي إن مركلة 10 كلي أنكو كلنا. هذا 10 كهورة دعوتي يو 10 هورنا أد بعض ما حسنت هاي وحبدن أيو كاني كهترين ذكرها. سيدا أدكو أركتي بيتك 10 وجوب بدن إيكو ترى وحكو سابسنيهين ورئيسية. هذا نوع حنكهد للدونا قيب يروكو سابسن إسلا ورئيسية راس. maxaa yeelay maalin walba yani markaad media daawanaysid waxyaabo waxa jira soo noqnoqda oo fara badan oo wariyaashu ay ku dhaqmaan waxa kamid ah qodobadaas oo aan doonayo in halkan kaga hadlo qodobka ku saabsan habka su'aalo weydiinta waa qodob muhiim ah ee dadka wareysiga muhiim u ah wariyahana inuu fahmo ay muhiim tahay waxyaabaha soo noqday aadka u badan waxa kamid ah wariye ayaa qof wareysanaya waqti buu ku helay wuxuu weydiinayaa su'aal aan jawaab fiican loo helin oo aan jawaabtu okay ahayn dhowr sababood horta marka hore inaad qofka su'aal weydiiso adag ma aha dadnimo wariyenimo fiicanna ma aha laakiin waa inaad heshid jawaab macna leh inaad heshid oo qofkan aad wax weydiinaysid aad jawaab ka heshid inaad ka caraysiisid qofkana ma aha wariyenimada wanaagsan wax ka turjumaya qofkan isagoo aan caroon oo aadan la dagaalin oo aadan ka caraysiin ma aha sidoo kalena ma aha hadal haynta in su'aalahaaga la hadal hayo oo saan u galayba arkiisay iyo hebel uu iga cararay iyo iyadana ma aha wariyenimo wanaagsan iyo wax lagu garto qofka seniorka ama qofka wariyaha su'aalaha fiican waa wariyaha intuu su'aal weydiiyo qofka jawaab wanaagsan ka hela runtana soo saara waa midaas su'aalaha marka aad ku batay ee dhaqanka noqdo waxa kamid ah waxa lagugu eedeynayaa inaad saastiri dad baa waxay ka aaminsan yihiin sida iyo sida dad baa waxay qabaan waxa iyo waxa horta su'aalahaasi ma aha su'aal habboon maxay u habbooneen qodobkan waxa lagugu eedeynaya ama dad baa waxay kugu eedeeyaan ama waxa lagugu xantaa ama waxaad hubtidba ma aha marka hore adigu inta aad qofka su'aasha weydiin soo hubi qofkan waxaan aad aamintay in lagu eedeynayo horta run ma yihiin tusaale ahaan oo kale waa wasiir maaliyaddu qaabilsan yahay waxa heshay xog ah in miisaaniyadda sida loo dejiyo uguma dhaqmo ee uu ku takrifalaa isagii madaxweynaha ku takrifalaa tusaale ahaan oo kale intaad oran lahayd wasiir waxa lagugu eedeeyaa inaad soo xaqiijiso inay arintan run tahay dabadna waxaad tiraahdaa habka aad u maamushid miisaaniyadda xageebay kaga jirtaa qodobkaas ah inaad lacag saayisa u bixisid lacagtan maxay ku baxday maxaad talaabada u qaaday si cad su'aasha u weydii qofka haddii qofka sidoo kale uu yahay qof yani laga hadlayo lagu xamalayo aragtiisa tusaale ahaan oo kale aragtidaada inaad cadayn oo marba meesha doonti aad aadid baa dadku kugu eedeeyaan oo kale tusaale ahaan oo kale su'aashaas ah maxaad hadba meel u aadaa toos u weydii shalay halkaan ahayd maanta aragtaana qabtaa maxaa ku bedela toos laakiin dad baa ku yiraahday iyo dad baa kugu eedeynaya iyo su'aalahaasi ma aha su'aalo meesha qabta maxaa keena marka in sida la yiraahdo waxaan tusaale u soo qaadanaya dadku waxay qabaan markaad tiraahdid waxa halka laga arkayaa adigu inaad iska bari yeelaysid arinta anigu kuma jiro dadka qaba no adiga way qofka su'aasha weydiinaya qofkan fursadaha u siin inuu ku yiraahdo dadku waxa ma qabaan adaa qabee su'aashaada caadi weydii oo aad muran halka u ka yimaado toos u weydii waxba dadka qaba iyo dadka yiri iyo adigu kalsooni muuji si kalsooni loo u dheh saa maxay ku dhacday deewaana casharada hore anaga ku sheegnayo su'aalaha kuwa ugu wanaagsan waa kuwa gaaban ee la fahmi karo ee aan sharaxaada iyo ararta faraha badan iyo hadal haynta iyo waxaas aan ahayn sidoo kale su'aalahaaga marka aad weydiinaysid qofka ha ku darin su'aalaha qofka shakhsiyadiisa wax u dhimaya ee laga yaabo in la iskala qabsaday laakiin shakhsiyadiisa wax u dhimaya tusaale ahaan oo kale mudane Soomaalidu waxay ku mahmaadaa fulayxantii ma mooge balka waran qofka haduu karaawno aanu fulay maahay leeyman xanto waxbade qofka fulay baa taa waa lagu xantaa waxba ku oranay su'aasha doonaysa toos u weydii oo si toos ah qofka u abaar
laakiin meelaha soo marmarino halkan waxa lagu yiri waxa lagu eedeynaya waxa lagu tuhmaya wax la hubo qofka weydii inta ma garata hadaada weydiinin oo aad waxaan hubin iska daa waxba xasamayn ha weydiin hadaadan soo hubin oo aadan soo xaqiijin arinta maxaa yeelay maxaan ku leeyahay hadaan soo xaqiijin waxa laga yaabaa in dad badan dood ka keenaan oo yiraahdo wax walba maxaan ka xaqiijinaya waxaad ka xaqiijinaysaa tusaale ahaan kale waxa tiri wasiir waxa lagu eedeynaya lacag 3.5 milyan ah oo mashruuca loogu talagalay in si khaldan loo maamulay oo ay khalad ahayd qaabkii dawladdu ay u maamushay arinta maxaad ka leedahay jawaabta ku siinayo marna kuma oranayo wallahi waa run xabada wad nagu qabateen kuma oranayo wuxuu ku oranayaan been weeye wadogta den markuu been weeye ku yiraahdo maxaad haysataa cadeyna hadaad haysatid proof cadeyn ah okay lacagtii loogu talagalay garoonkaas oo intaas ahayd xagee bay qabatay caadi u dhax xagee bay aaday lacagtii mashruuca loogu talagalay intaas ahayd 3.5 milyan maxaa lagu qabtay taas u weydii مشروعي والجمال قريه هدوك يلا أوكي ماي مشروعي محيد كو أركو أيام وركو ساسو كليه لكن أرنتاس محد كلا دد بوحي كوجا إداني أرنتاس على توهمية أرنتاس وحلوجو توهمية ده نو ها بحبا قفك هويدين قفك سؤال توسويدي سكلير أنا قفك ويدي وركها كنا عد هذا أنت سر بينا ما أنت راهضو أد بعض ما سنتهاي سفي عن وحي سؤاله يا كومنتي أرغبتنا حق هوس يقولوا ذاك نبت قليل